السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada asxaabay channelkayga tiktoolajiyada oo laashiina maasha Allah waxaa idin leeyahay meel walba aad joogtaan ramadaan kariim ramadaan mubaarak aan idin leeyahay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cudurka loo yaqaano jabto ama gonorrhea oo ka mid ah cudurrada faafa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga tiktoolajiyada subscribe like comment una sii share laba ka mid ah asxaabtada si ay ugu faa'iidaystaan casharada muhiimka ah waad ku mahadsantihiin cudurrada lagu kala qaado galmada waxaana loo soo gaabiyaa STI oo micnaheedu yahay sexual transmitted infection. Cudurkan jabtada ah waxa ay ku fidaa galmada iyadoo lala xiriiriyo qof qaba cudurkaani uu la galmoodo ama uu la seexdo qof aan qabin cudurkaani. Qofka ku dhaca infection-kan wuxuu awood u yeelan karaa in uu dadka kale u gudbiyo asagoo isla markaana wax astaamo ah aysan ka muuqan. Bakteeriyada sababta cudurkan loo yaqaan jabtada waxaa loo yaqaanaa Neisseria gonorrhea. Bakteeriyadan caadi ahaan uguma noolaan karto muddo dheer bannaanka, waa ay dhimataa daqiiqado ilaa saacado gudahooda. Waayo bakteeriyadan waxay awood u leedahay in ay ku noolaato meelaha kuleylka ah ama gudaha. Astaamaha ama calaamadaha lagu arko rag iyo dumar maxaa ka mid ah? 1. Kaadi hur rag iyo dumar ah. Dheecaan ka yimaada xubnaha taranka dumarka iyo ragga. Isku dagga oo yeesha dareen aad u xanuun badan. Qanjiro xanuun aan barar lahayn. Raggana waxaa lagu arkaa qanjiro xanuun dhanka qoorahana ay ka yeeshaan barar yar. Haweeneyda waxay isku arki kartaa caadada oo haweeneyda aad u dhibta ama ay ku dhibaatooto. Waxay isku arkaysaa qandho marmarka qaar ah. Sidee loo hortagi karaa cudurkan loo yaqaano gonorrhea? 1. Waxaad ugu hortagi kartaa inaad sameysid safe sexual inuu sexual-kaagu noqdo mid safe ah ama ay ka midaysan tahay qof xalaashaada ah. Sidoo kale qofka markuu qabo cudur ama cudurrada faafa kaga shakina waa inuu qaataa condom. Ka hortagga ugu weyn ayaa ah in aad ka fogaato ama aad iska ilaaliso galmada sharci darrada ah. Daaweynta cudurka jabtada waxa ay ku xiran tahay hadba bakteeriyada jabtada ay sababto heerka ay marayso. Fadlan la xiriir goobaha caafimaadka ah si aad u ogaato heerka ay marayso bakteeriyada. Hana isticmaalin daawo dhakhtar uusan waayo waxay ku yeelan kartaa saameyn aad u daran. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkayga like comment waxaa noogu reebi kartaa wixii fariimo ah commentiga ayaa noogu reebi kartaa siina share si ay ugu faa'iidaystaan asxaabtaada una baahan daruurigan u ah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani shukran oo asxaab